22 bishii Juun sanadkii 2017 Cabdikariim Makhtal Maxamuud Axmed oo 31 jir ah waxa uu hor yimid maxkamad milatari oo ku taala magaalada Muqdisho waxaana lagu xukumay 20 sano oo xariga. Dembiga lagu helay waxa uu ka koobnaa 3 qodob. Waa tan hore inuu wax u basaasay waddan shisheeye oo u soo diray dalka Soomaaliya si uu u fuliyo falalid ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka Soomaaliyeed. waxaa kaloo lagu helay dembiyada kale ah isku daydil iyo u horkicid dembi isagoo abaabulo in la dilo 3 shakhsi oo ku noolaa magaalada Muqdisho. Cabdikariim Makhtal Maxamuud Axmed waxa uu shirqoolkan bilaabay bishii Maars oo 3 bilood ka hor xilliga ay dhacayso maxkamadayntaasi. labadii bishii Abriilna waxa uu isku dayay inuu dilo kan ugu horeeya ee 3 shakhsi oo bartilmaameed u ahaa. Xuseen Yuusuf Faarax waxa uu ahaa 3 qof ee uu bartilmaameedsanayay kan ugu horeeya. 4 nin baa waxay ii timid baabuur bay igu riday soolad iyo 2 qori baa la igu qabtay. Raggaasi soo kaxaystay waxay ka bixiyeen dharkiisii iyagoo kadibna rasaas la dhacay dharkii. kadibna waxay ku daadiyeen dhiig ka yimid neef ari ah oo la gowracay. waxayna dharkii u keeneen Cabdikariim Makhtal Maxamuud Axmed oo ka soo haray inkastoo uu shirqoolka soo mareegay. waxaana ay weydiisteen lacagtii uu u ballan qaaday oo ahayd $15,000. waxa kaloo ay ka codsadeen inuu la hadal siiyo sirdoonka dawlad deriska ah oo soo amray in dilkaasi la fuliyo si ay ugu sheegaan mas'uulkii u qaabilsanaa in dilkii uu meel maray. Cabdikariim Maxamuud Axmed Makhtal oo aaminsanaa in la dilay ninkii bartilmaameedka u ahaa Xuseen Yuusuf Faarax ayaa la hadlay sargaalkii amarka soo bixiyey. markii aniga insaas ahaa sawirkii laga qaaday oo sawirkii dantii laga lahaa laga qofsaday baa la celiyey. waxaa la yidhi waan ku iibsanay $15,000 baan ku siisay. $15,000. $15,000. hase yeeshee intii uu shirqoolkani socday waxaa codadka iyo howlgalkaba duubayey laamaha amniga ee Soomaaliya. halkaasina waxaa ku buuxsamay ururintii caddaymaha maxkamadda iyo sirdoonka Soomaaliya ay samaynayeen. waxaa Cabdikariim Maxamuud Makhtal aanu ogeyn in askarta uu ka filayay inay shirqoolka fuliyaan ay wargeliyeen sirdoonka Soomaaliya ayna la wadaageen shirqoolka bilow ilaa dhammaad ilaa ay maxkamaddu ka caddaynayso in dilkaasi uu dhab ka ahaa. maxkamaddu waxay kaloo ogaatay in qorshahaasi ay soo maleegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka Itoobiya gaar ahaan gobolka ismaamulka Soomaalida. 3 shakhsi ee la bartilmaameedsanayay waxay ka tirsanaayeen ururka ONLF waxayna kala ahaayeen Xuseen Yuusuf Faarax oo goordhowaad codkiisa maqasheen, Maxamuud Sooc iyo qofka saddexaad oo ahaa Cabdikariim Muuse Qalbidhagax. Cabdikariim Muuse Qalbidhagax waxaa soo deyntiisa dhowaan kadib uu waraysi khaas ah oo siiyay barnaamijka galka baarista uu kaga hadlay dhacdadaasi. waxaana uu ii sheegay in xilliga shirqoolkaasi la maleegay ay heli jireen hanjabaado dil ah oo ka soo gaarayay Itoobiya. sirdoonka Itoobiya iyo qolyo iskaashanaya dabadaba socda waa nala dhihi jiray. digniintaasi noocee bay ahayd? ma waa idin dilaynaa mise qaab kale ahayd? maxay ahayd? ma laydin sheegay? waxay ahayd 180 waa idin dilahayaa ahayd. mararka qaarkood waan maqli jirnay qofkii ay suuragal tahay in la qabto laakiin waxay u badnayd in nala laynahayo. arrintaas u badan baan isku gaari jiray. dawladda Itoobiya federaalka mise maamulka Soomaalida mise labadaba ka imanaysa? intaba dhammaan waxay ii sheegeen qolada gacanta ugu haysay inay in badan ay raadinayeen daba socdeen dad badanna inay isticmaaleen dhowr jeer tiro badan ba iyagu dhaceen. mararka qaarkood meelo lagu soo sheegay inay tagtageen misalada hoteelada fariisan jirtay baan helay, maqaayadaas ka shaahi jirtay baan helay, waxaas oo kale way dhaheen. mar waxay dhaheen ugu dambeyn xaafadda degantahay baan soo helay bay igu dhaheen. kasoo meeshay dhaheen xaafadaada waan ku soo aragnay aanan deganin. Cabdikariim Muuse Qalbidhagax waxa uu aaminsan yahay in sirdoonka Soomaaliya iyo hanaanka garsoorkuba ay shaqo ammaan leh qabteen si ay kiiskaasi uga salgaaraan. sirdoonku Soomaalida saas way fariishireen khayrlaasi. marka ficilkaas geystay watay dhibaatada shirqoolkaas maxkamadda la saaray xukunka ku dhacay. inahaas waxay ahayd intii shaqo fiican ay qabteen oo lagu ammaani karo. kiiskan ayaa barnaamijka galka baarista waxa uu kala xiriiray mas'uuliyiinta ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Khadar Cabdi Ismaaciil waa madaxa xarunta dhexe ee xisbiga shacbiga Soomaalida Itoobiya. in muddo ahna waxa uu ahaa sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka. xaqiiqatan xogtaas ma hayo balse haddii ilaahay ilaaho hay'adaha ay khusayso ama goobaha ay khusayso intaan weydiiyo haddii ilaahay ilaaho wixii jawaaba waan ku siin karaa laakiin xogtaas hadda aniga way ugu cusub tahay. waaya haddii ay dhab noqoto maxaa talaabood qaadi kartaan? kolleyto xaqiiqatan waxay u baahan tahay qofka waxay ka jiray iyo inayna jirin iyo inayna ay jirto in la ogaado. marka
marka hadda kuma degdegi karo oo kuma dhihi karo sababtoo ah maba ogi xogtaas oo ma hayo tallaabadaasaan yaan ku eegaynaa ama tallaabadaasaan qaadaynaa mid aan ku dhihi karo saacadan hadda ma aha. maxaa haddaba caadiyan waajib ah ee saaran dawlad marka dawlad kale ay isku daydo inay falkaasi ka fuliso waddankeeda? ma jiraan qaynuuno caalami ah oo diblomaasiyadeed oo ka deggan? ma jiraan shuruuc caalami ah iyo kuwo laba geesood ah oo lagu xadgudbay? su'aalahaasi waxaan hordhigay garyaqaan cabdulwaaxid cusmaan qalinleh oo ku nool gobolka minnesota ee dalkan maraykanka. waxaan anigu marka hore sheegayaa kiiskan hadda aad weydiisay lama socdo anigu faahfaahintiisa. hadalkaygana ma aha hadal si gaara aan kayskan ugaga hadlayo, laakiin si guud baan uga hadlayaa. markii faldambiyeed noocaas oo kaliya dhaco 2 arrimood baa laga fiiriyaa. faldambiyeedkan qofkan ajnabiga geystay ma qof shakhsi ahaan u geystayba oo shakhsi ahaan isagu dembigan u galay, mise waxa ka dambeeya dawlad oo xaqiijin karaa inay dawladi ka dambayso. haddii qofku uu shakhsi ahaan u galay, inta badan dawladuhu waxay leeyihiin wax loo yaqaan extradition treaties iyobaa jira ama agreements. waxaa jira heshiisyo dhigaya in la isweydaarsado dadka eedeysanayaasha ah ee ay dawladuhu kala qabaan. heshiisyo dawladaha ay saxiixdaan baa jira. marka haddii faldambiyeedku shakhsi yahay waa noocaas. haddii la ogaado inay dawladi ka dambeysay oo cadeymaheeda la helo, dawladuhu inta badan waxay xaq yihiin markaa inay dawladda faldambiyeedka laga dhex sameeyey dhexdeeda, sida Soomaaliya oo kale masalan arrintan hadda aad sheegayso kale, in ay arrintaa ka mudaharaad diblomaasi ah ay samayso oo ay arrintaa dacwad iyo cabasho rasmiya dawladda kale u gudbiso. dawladu markaa waxay sameeyaan ciqaab diblomaasiyadeed oo ay ka mid tahay in danjirayaasha ama ambaasadorada waddankaasi laga eriyo dalka ayaa dhacda. waxaa dhacda sidoo kale in dawladuhu ay isla tagaan maxkamadaha gobolada ka jira regionka Africa oo kale ama United Nationka ama maxkamadaha caalamiga ah, in dawladaha qaarkood ay xayiraad ama ciqaab xagga dhaqaalaha ay soo rogaan. waxaa jira arrimo fara badan oo dawladuhu ay ku kacaan, laakiin waxaa la ogyahay markii arrimaha sirdoonka gaar ahaan la xiriira dembiyada noocaasi aad bay u adag yihiin in la caddeeyo oo waa arrimo siyaasadaysan weeye. dawladuhuna inta badan waxay ku xaliyaan xaal mastuur, waana arrimo runtii dawladuhu aanay u dulqaadanin in faragelin toosa inta lagu sameeyo dalkooda faldambiyeedyo laga fuliyo dhulkooda laga fuliyo. waa arrimo xasaasi ah oo dawladuhu aad iyo aad bay arrimahaas uga fiiriyaan. maxaa haddaba dawladda Soomaaliya ay ka qabatay caddaymaha maxkamadda ee ahaa in sirdoonka Itoobiya ay isku dayeen inay dilaan xubno ka tirsan ururka ONLF? bil kadib markii uu dhacay xukunka Cabdikariim Makhtal Maxamuud Axmed, waxaa dawladda Itoobiya ay sii daysay maxaabiis Soomaali ah oo tiradoodu dhan tahay 114. haddaba sii deynta maxaabiistaas xiriir miyay la lahayd xukunka Cabdikariim Makhtal Maxamuud? haddaba dawladda Soomaaliya iyo waxay ka qabatay kiiskan waxaan wax ka weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. ninka iyo sharcigiisa iyo xiriirdiisa iyo maaragtay maxkamad baa go-aankeeda loo go-aamisay. adiguna waa sheegtay xukunkii inuu dhacay, laakiin waxaan kuu sheegayaa maxaabiista la soo daayey inaysan xiriir la lahayn gorgortan kale satoona. Ethiopia keliya maaha, maxaabiis waxaa laga soo celiyey maxaa la yihahdaa India, waxaa laga soo celiyey Ethiopia saa adigu waa sheegtay. waxaa dad Soomaali oo ku dhiban maxaa la yihahdaa laga soo celiyey Libya. hadda waxaa socda hadda aynu isla hadlayno waxaa jira diblomaasiyiin Soomaaliya oo ku hawlan soo deynta maxaa la yihahdaa dad Soomaaliyeed oo ku xiran Oman, dad Soomaaliyeed oo ku xiran Iran, kuwa ku xiran xuduudaha maaragtay maxaa la yihahdaa Tanzania iyo Zambia. marka safaaradaheena dadka jooga iyo diblomaasiyiinteena arrintaasay ku hawlan yihiin. marka soo celinta dadka Soomaaliya xabsiyada ku jira waxay ka mid tahay iyo karaameynta iyo udoodida qofkii Soomaaliya ee soo dhawaysa waxay ka mid tahay maxaa la yihahdaa sakarka xukuumadda. marka wax cabasho ama protestia ama ood ka samayseen dhacdadaasi may jirta? dhacdadee walaal? dhacdada ninka la xukumay sanadkii hore June 22keedii 2017, ninka haddaan kuu sheegayo lagu xukumay lagu helay inuu doonayay inuu dil ka geysto Muqdisho. haddii laga sameeyo cabashooyinka diblomaasiyadda ah
waa kuwo ku ekaada janalada diblomaasiga ah garanay. laakiin sirdoonka Itoobiya kama hadhin kiiska raggaasi waxaana la soo gaaray bishii August ee sanadkii aynu soo dhaafnay markaasi oo dawladda Soomaaliya cadaadis ha uga yimaado dhinaca Itoobiya ama iyaduba iskeeda ha u go'aansatee ay dawladda Itoobiya ku wareejisay mid ka mid ah baanduulayaasha ururka ONLF Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax oo bilayar ka hor ka badbaaday shirqoolka sirdoonka Itoobiya ay maleegeen. waraysiga khaaska ah ee Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax uu siiyey barnaamijkan galka baarista waxa markii ugu horreysay uu si qoto dheer u faahfaahinayaa sida ay u dhacday qabashadiisa iyo sidii loogu gudbiyey dawladda Itoobiya. habeenku waa Arbaco 23 bishii August 2017 waa xilli fiida ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya oo ka socda maamul goboleedka Galmudug ayaa galay hotel ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo. ciidan baa yimid laafay u garaacan waan ka furay hawshadeedii qaabkaas ku bilaabatay. ciidamadaasi markii ay qabteen bartilmaameedkooda waxay ku xireen qol madow su'aalaha ay weydiiyeenna waa ay koobnaayeen. way ka hayeen meel ay deganayeen oo xabsi oo dadku xidhi jiray bay geeyeen. 3 habeen baan joogay Gaalkacyo. 3 habeen lagu hayay wax lagu weydiiyey ma jiray sargaalka ku soo qabtay ma taqaana? ma aqaano sargaalka soo qabtay waxa la weydiiyeyna oo aan magacayga ahayna ma jirin aba yaraatee magacayga unbaa la weydiiyey magacaygana umaana sheegin toos umaana sheegin. galabtii dambe habeenkii ay soo qabteen galabtii dambe inay ahayd baan u malaynayaa iyagoo magacayga sheegayaan banaanka ka maqlaayay hadal haynta magacayga banaanka ka maqlaayay laakiin intii la iilay hebel ma tahay ma aynan ugu dhigin. Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaa markiiba galay tuhun waxaana u weheliyey walwal sababtoo ah Gaalkacyo iyo magaalooyin kale oo ku yaala Soomaaliya waxay ahaayeen meelo horey loogu qabtay xubno ka tirsan ururka ONLF xubnahaasi oo ku dambeeyey xabsiyada Itoobiya. maalintii Jimcaha ee 26 bishii August xilli galab dheer ah waxaa loo sheegay Cabdikariim Qalbi Dhagax in garoonka la geynayo si diyaarad loo saaro. mar waa uu farxay sababtoo ah raggii isaga ka horreeyey laguma qaadi jirin diyaarad. ugu yaraantaasi waxay muujinaysaa in kiiskaygu uu gaadhay madax iyo meel sare ayuu niyadda isugu dhisay. haddana markiiba waxa uu garowsaday in diyaaraddu mar walba ula baydhi karto dhinaca Itoobiya. walwalkaasi ayuu ku jiray ilaa daaqadda diyaaradda uu ka arkay xeebta magaalada Muqdisho. walbahaara waan qabay wararmay diyaaraddu dhinac kale u jiiraysaa oo dhanka midig ay ka jiiraysaa jigjiga kulaada. laakiin markaan arkay meeshaan kasoo caga dhiganayno badii bidhaanteedii markaan arkay aan gartay inaan kusoo dhawaanay xamar waan farxay aad baan u farxay. dhowrkii habeen walaacday ahaana wuu iga ba'ay anigoo indhahaygu toos wuxuu arkay hayaan baan kasoo degay airportka oo garanahaya oo dadkii qaarkii garanaya baabuur baa lagu qaaday. waxaa lagu xiray xabsiga lagu magacaabo baarista xisbiga ee Muqdisho. welina Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax looma sheegin cidda uu u xiran yahay iyo sababta loo haysto. waxaa la soo gaaray maalintii afraad tan iyo intii la qabtay. kabacdi xamara lagu keenay. xamar wax ma lagugu weydiiyey iyada? aniga qoladan xamar markii la ii keenay maalinta maxay ahayd galabtii jamcuu sii wareegayey habeenkaas goor casarkii jamcii casarkiisii yaa meel layidhi waa baaritaan yaa la igeeyey. waxaa la weydiiyey keliya Qalbi Dhagax ma lagu yidhaahdaa magaca? maya baan ku yidhi. magacaaga sheeg baa layidhi. cabdi muuse la yidhaahdaa baan ku yidhi. wixii kale ku daran wuxuu ahaa qolamaa tahay yaad ka tahay caruurtaada magacyahood waxaas oo iyo maxaad ka shaqaysaa iyo waxyaaba saas kala. qabiilkaagay ku weydiiyeen? ha mar walba su-aalaha igu soo noqonayo ku jiray qabiilkaagu muxuu yahay. marka runtii ma jeclaysanayn inay dhahaan qabiilkaagu waa maxay. maxaa yeelay dee haddii aan eedaysanahay waxaan dhowrayay in waxaan ku eedaysanahay ama waxa laigu tugunsan yahay in la weydiiyaan filayay. laakiin magacayga markastoo la weydiiyo waxa ku tagaa waxa weeye qolamaa tahay bay ahayd. arrintaas aad bay runtii igu ahayd arrin iyo cuntami weyday oo aanan fahmin. waan ku yidhi mararka qaarkood qabiil dee dembi maaha iyo wax laisku eedeeyo wax kalemaad weydiisaan maxaa intan. marka markii ugu dambeysay inay ahayd baan u malaynayaa yaa nin wuxuu yidhi waxaa la sheegay inaad tahay guddoomiye ku-xigeenka jabhadda ONLF maxaa ka jira arrintaasaa lagu haystaa. waxaan ku yidhi ONLF-nimadu dembi maaha. aan ku yidhi waa urur goonimo doona oo la yaqaano dunida caafimaad ku leh oo xafiiska ku leh dalka laga yaqaano oo Soomaaliya. marka ururkaasi dembi maaha in qofku ka tirsan yahay. laakiin aniga ninkaa sheegaysaa mihi baan ku yidhi anigu guddoomiye ku-xigeenka ONLF
ummadda Soomaalidu way taqaanaa gudoomiyaha oo meesha way taqaanaa meesha degan way taqaanaa marka ordo soo xaqiijiyaan fiir waxaan waa gartay ninka su'aalo mar intaan baa soo dhaxgashay ninka su'aalahaas ku weydiinaya iyo dadka su'aalahan ku weydiinaya qofna ma ka garatay qof hore aanu aqaan kuma jiro haba yaraatee laakiin ninka su'aalaha ay weydiinaya qoladan ciidankiisa ee meesha joogtay ilaalada markii horeysay waxay yiraahdeen ninka xafiiska ku jira u tag bay yiraahdeen garas u tag bay ugu dhaheen garas muxuu ahaa markaan ku yiraan waxay dhaheen waa ninka dambe baaraha garas la yiraahdo u tag xageedu jooga xafiiskaas ku jira ee ugu dhaheen xafiiska markaan galay oo nin dhex fadhiyaan ugu tagay meeshii qolka ay tilmaameen asal waxaan ku yiri garas ma adiga markaasuu wuxuu yiri haahe qalbi dhagax ma tahay marka warwii waa ku yiri marka ninkaas baa jiray waxaan magaciisa xataa garanayo malakii weydiin cid kale laakiin inta ugu badan ninkii waxay qorahayay buu ahaa waxaa la soo gaaray Isniin 28 bishii August hiirtii hore ee maalintaasi ayaa lagu kallahay qolkii uu ku xirnaa Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaana loo sheegay inuu isdiyaariyo anigoo ku jira qolkii aan ku xidhnaaba aroortii waxaa igu soo galay niman ciidankii meesha ilaalada ahaa kamid ah waxay yidhahdeen sarwaalkaaga qaado kala sarwaalkaagii oo ii keeneen oo iga maqnaan shaarkaaga xidho wax iyadaan xidhay waxaan u qaatay in la ii geynayo meel maxkamad in la ii geynayo mar qalbiga way iga soo dhacday xilligan la ii diyaariyey inkastoo waa xilli hore oo aan lahaa ma furna xafiisyada iyo maxkamadu haddana waxaan u qaatay in madaxda dalka qayb kamid oo ay doontay inay aragto oo la ii geynayo baan u qaatay gacmaha markii la iga xidhay aad baan u shakiyey gacmaha markii la iga xidhay ama indhaha aan la iga xidhin baa banaanka imid banaanka markii aan imid baa taliya xabsigu wuxuu yidhi war indhaha ninka ka xidha markaasaa indhahana la iga xidhay xadhiggii gacmaha laigu sii adkeeyey kii indhaha laigu adkeeyey laakiin haddana waxaa isyeelan waayey waxa uu ismoodsiiyey iyo hadallada ay dhagihiisu maqlayeen kadibna waxaa loo qaaday garoonka Muqdisho baabuurka lagu qaaday baabuurka laga wareejiyey kontarollo way jireen aan sii dhaafnay kuway ahayn ma garan karo sidaasaa waxaa lagu wareejiyey baabuurkii dambe lagu wareejiyey baan waxaan maqlay dad ka hadlahayo oo ku hadlayo luuqadda amxaariga baabuurkaas wax ka yar 100 mitir buu waday ciidan baa iga dejiyey diyaaradda halkaasna la iga saaray sidaasay horta xaaladeeda xamar aan kaga baxay ay ahayd Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaa diyaaradda sida ay ku hakatay magaalada Baydhabo waa sida isaga la ahayde marka waa la iga soo dejiyey diyaaradaasaa la ila soo wareejiyey si wareegaha saas oo kale yaa la ila soo wareejiyey meel aan malayn madaxa diyaaradaasaa la ila soo wareejiyey meel baa la istaajiyey meeshaa la istaajiyey gacmaha ciidan baa gacmaha hayay ma arkaynin dadka kale sii taagan laakiin shanqar baan dareemayey dad meesha taagnaa iyo intii yaraydeen taagnaa kuwa kusoo socday iyo jaanqaadkooda baan maqlayay runsiga marka ma caddayn karo laakiin meeshaasu meeshay ahayd si yar markaan taagnaana diyaaradii baa laygu celiyey inay iyadii ahayd iyo inay nooceedii ahayd ma garanayo laakiin diyaaradii baa laygu celiyey muddo gaaban kadibna waxa uu gudagalay duulimaadkii ka tallaabinaya xuduudda Soomaaliya goday markay ka tegtay aniga oo weli diyaaradda saaran yaa waxaa laga furay indhaha markaasuu ninkii indhaha iga furay wuxuu yidhi meeshani waa goday buu igu yidhi nin ciidanka Etoobiyaanka ka tirsan buu ahaa afkooda igula hadlay igu yidhi meeshani waa goday luqadooda aad umaana fahmaynin laga badanna umaba lahayn oo dee hadda hadalka soo dhahaan maanan sii raacaynin laakiin magacii baan qabsaday meeshan waa goday yiri anoo diyaarad saaran baan marka fiiriyey dhankay magaalada ka tahay meesha aan taagnahay markaasaan arkay ciidii inay ciidii goday u eg tahay magaalada dhaanteeda meel ka arkay diyaaradii baa laga soo dejiyey anoo markaan indhaha ka xidhnay laakiin gacmaha sidii uga xiran baa laysoo dhexmariyey airportka aan ku dhex lugeynay meel baan waxaan ugu nimid kuwa qolyahan dabaqoodhiga iyo waxyaaba meelaha tuuran baan ugu nimid iyo qolyahan kale ciidamadii bay meesha joogay Etoobiyaanka ahaa dad un dhammaantiin qolyahaas un ka wada tirsanaa yaan meesha ugu nimid meel bay ay deganayeen bay igeeyeen sawirray damcaynan iga qaadaan oo dhinac baan uga jeedsada waan diidanaa inay sawir iga qaadaan wejigayaan u diidanaayo marba dhan bay igala wareegahayeen oo iskaga kay boodhaadhiyeen iskakay aflagaadaynahayeen laakiin waxaas oo dhan ma wax hadda macna way sameynahayeen maaha wejigayga un baan diidanaa inay ay soo hor istaagaan iyagoo isagoo toosa inay sawir iga qaataan baan diidanaa inahaas kadib haddana waa un la caraabiyey xilli aanu malayn 5 galabnimo haddana diri dhaba laga dejiyey meel xun oo xabsiyada yaa habeenkii maqribkii markay ahayd yaa lagu kaxeeyey meel aada runtii u fool xun oo aada u dhib badan oo aan qofna ku jiri karin saaxado badan bay ahayd laakiin qofkii sideedoo kale danta ku qasataa uu iskaga jirahayey kama bixi karin
halkaasay maalintii dambena yaan igu hayeen waa layga qaaday galabtii dambe xilli aan u malaynahay inay 5:00 galabnimo ay qiyaasta tahay yaa taaba meel u dhow safrada liyaado airport ciidamada ay leeyihiin yaan ka degay iga dejiyeen qola halkaa lagu sugaysa aan u tagnay oo sirdoonka dalka ah baabuurkii ay wateen baa lagu wareejiyey katiinada hore iga xanayd intii layga furay baa yaa nimankii waday la noqdeen toodii su kale qoladana hayseen baa lagu bedelay sidaasaa waxaa lagu geeyey meel yar oo xafiya. fursaddii ugu horraysay ee dawladdu ay heshay inay arrintan kaga hadasho waxay ahayd 30kii bishii August markaasi oo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu qabtay shir jiraa'id isagoo ay garab fadhiyeen xubno ka tirsan dawladda oo ku jiro taliyaha hay'adda nabad sugidda oo hay'adiisa loo haystay inay fulisay qabashada iyo dhiibista Cabdikariin Qalbi Dhagax markii mid kamid ah saxafiyiinta uu su'aashaasi si toos ah u weydiiyay ra'iisul wasaaraha waxaa mikrofoonka qaatay taliyihii nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalolshe waxaana uu sheegay in kiiska sargaalka ONLF oo xasaasi ah aysan xilligaasi ka hadlayn dawladda Soomaaliya hadalkaasise waxa uu dhinaca kala xaqiijiyey dhiibista Cabdikariin Qalbi Dhagax. intaas kadib waxaa tallaabadaasi ka dacwooday xildhibaano ururo bulsho iyo dadweyne caadi ah oo meelo kala duwan ka bannaan baxay waxaa dhiibistaasi ay ku soo beegantay iyadoo mar walba dadka Soomaalida ah ay xasaasiyad badan ka qabeen faragelinta shisheeye culayska ka soo fuulay dawladda dhinaca dadweynaha iyo xildhibaanada baarlamaanka oo jawaabo dalbanaya waxay ku qasbeen in 6dii bishii Sebteembar golaha wasiirada Soomaaliya ay markii ugu horreysay si rasmi ah ugaga hadlaan arrinta abuurtay dabaysha siyaasadeed waxayna dawladdu difaacday tallaabada ay qaaday iyadoo u cuskatay is-afgarasho hore u dhaxmartay mas'uuliyiin ka tirsan dawladdii hore iyo Itoobiya intaasi waxaa dheeraa in dawladdu ay Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax iyo ururka ONLF la xiriirisay urur argagixiso ah gaar ahaan Al-Shabaab afayeenkii dawladda ee xilligaasi ahaana wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ayaa warbaahinta uga warramay mowqifkii dawladda golaha ayaa ugu horreyn warbixin ka dhageystay hay'adaha amniga ee la xiriira xaaladda amni ee dalka guud ahaan gaar ahaan dhacdadii sarkaalka jabhadda hubaysan ee ONLF waxayna sheegeen inuu abaabulayay falalid ku ah amniga dalka oo in muddo ah ka dhex waday dalka gudihiisa xiriirna ula lahaa kooxaha argixisada ee Al-Shabaab eedaha dawladda iyo la xiriirinta Al-Shabaab waxaa si xoogan u beenisay jabhadda ONLF hadalka dawladdu ma dejin xiisadii taagneyd Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax waxa uu xilligaasi ku jiray xabsi ay leeyihiin sirdoonka Itoobiya saraakiisha Itoobiya ee sirdoonka ayaa u soo jeediyey arrin uu arkay qayb ahaan in la doonayo in lagu dejiyo xiisadii ka taagneyd magaalada Muqdisho dhinac kalena uu arkay in lagu waxyeeleynayay mabda'iisa xaaladan adag ee xamar ka dhalatay iyo qalalaasadan shacbiga Soomaaliyeed iyo kacdoonkan uu sameeyay iyo baarlamaankan hawlihiisa yaan u baahan in la damiyo taana waxaa lagu damin karaa in la yiraahdo Cabdikariin hadal asaga in laga hadliyo telefishinka la geeyo idaacadaha warsiyo yiraahdo anigu Soomaali mihi inuu yiraahdo aniga iskeenay inuu yiraahdo Soomaaliya maxay naga rabtaa inuu yiraahdo baarlamaanka inuu u jawaabo shacbiga inuu u jawaabo waxaas oo dhan inuu cagta mariyo sidaas xaaladda xamar ku dayay kartaa madaxdii Itoobiya aniga gacanta ugu haysay arrintaas dhaxdooda ku kala jabeen qayb kamid aragtida way qaadatay waxay goosteen inaan anigu hadlo telefishinka la geeyo idaacadaha waraysi siiyo aan waxaas ku hadlo Soomaali mihi inaan dhaho anaa iskeenay ereyadaas aad maqlayso oo dhan bay qaarkood ila yimaadeen waxaa runtii caawinayay oo jeclaan lahaa maaragtay inaan sheego asxaanka ii sameeyeen qayb kamid ah madaxdii Itoobiyaanka ee gacanta igu haysay qayb kamid ah gaar ahaan hay'adda sirdoonka madaxda ugu sarreeya yaa qorshaha waxay qaadatay wixii aniga aan doorto mooyahay inaan khasab laygaga dhigin inaan waxaas ku hadlo laakiin hal la weydiiyo haddii uu ogolaado oo ikhtiyaarkiisa ku ogolaado markaan usoo bandhigno haddii hagaaga ku hadla anagu afka qaban mayno hadduu diidana cid ku khasbi karta iyo inaan ku qaqaadnaayo ma dhacayso yidhaahdeen maalmo yar kadib qaarkood baa hawsha ay la yimid waxay igu yidhaahdeen ereyadaasoo qoran bay dhaheen waxaan ku yidhi soomaalinimadu ma aha siyaasad soomaalinimadu waa isriya u dhalasho daan aaminsanahay anugu inaan Itoobiyanahay noloshayda oo dhan lama dagaalameen Itoobiya lama dagaalameen anigu ma aaminsan inaan Itoobiyanahay aabahay ma aaminsan inuu Itoobiyaan yahay awowayaashayna ma aaminsan inuu Itoobiyaan ahaayeen ilmahayguna ma aamini doono inuu Itoobiyaan yahay intaasaan ku yidhi
wax marka aan aqbalayo ma jiraan. wixii kale qorsheed qaadanaysaa yeela kiiskaygu wuu caddaa. dawladda Soomaaliya ay qabatay wiilkii diiday kiiskaygu waa kiis tirida oo dhan ka warhayso aniga waa la yaqaanaa. taa marka ma aqbalayo aan ku yidhi. dhowr jeer oo kale laygu soo celceliyay erayada inaan isticmaalo. dhowr jeer baa laygu soo celceliyay jigjiga inaan tago oo laygeeyo jigjiga aniga oo aan maxbuus hayna hadli karo, idaacadaha ka hadli karo, telefishinada ka hadli karo, waxaa ku hadlahaya dhowr bilood laga soo bilaabo markaan xidhnaa bil kadib qiyaasa markii la yahayay ilaa iyo bishii May intaas way igu soo noqonaysay. runtii erayadaas way igu soo noqonayeen. baarlamaanka go-aamadiisii ka hor iyo kadib way igu soo noqonayeen. kusoo noqoshada dambe marka iyadoo go-aankii baarlamaanku dhacay haddana lagu soo celceliyo aan u qaadanayay oo u fasiranayay macnaheedu inuu yahay inaan aniga khatar dambana ayna iga imanin, noloshayda iyo taariikhdaydana halkaa lagu baabi'iyo. sidaa darteed ana waan iska diiday. waxaan aaminsanaana intii marnaba kama leexanin, beena kama sheegin. sidaa anoo baana ilaahay iga soo saaray. 13 bishii Sebteembar 2017 baarlamaanka Soomaaliya waxay guddi u saareen soo baadha sidii loo dhiibay iyo cidda dhiibtay Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax, waxaana la siiyey muddo bil ah inay ku soo diyaariyaan, taasi oo dib u dhac uu ku yimid. ugu dambayntiina waxay guddigu warbixintooda hor keeneen baarlamaanka Soomaaliya 19 Novembar 2017, waxayna go'aamiyeen in gudbintaasi Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax ay ahayd sharci darro. waxay kaloo sheegeen in ururka ONLF aysan ahayn urur argagixiso ah. go'aanka guddiga waxaa baarlamaanka u akhriyey xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh. guddiga waxaa u soo baxday in gudbinta Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax aan loo marin hab sharci ah, lagana talagelin hay-adaha garsoorka, iyadoo isla markaa ay maaraysay hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka keliya, laguna saleeyey go'aan aan ku dhisnayn xog aan sugnayn oo la siiyey madaxda qaranka. guddigu waxay mas'uuliyadda qabashada iyo dhiibista Qalbi Dhagax dusha ka saareen hay-addii nabad sugidda. xilligaasi waxaa hay-adda nabad sugidda madax ka ahaa Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalooshe. waraysi aan arrintan kala yeeshay goor hore waxa uu ku sheegay in go'aanka dhiibista ay ka warqabeen madaxda sare ee dawladda. golaha wasiirada soo intay fadhiisteen wasiirka faafinta uu hadlay sababta loo dhiibay iyo waxa kalifay iyo go'aamo kale oo ka waaweyn soo lama qaadan. anigu hadii ma see go'aan dawladda aysan ogaan u qaadan kara aniga. markaas waxaa mogtahay go'aan dawladda ka baxsan aan qaato in dawladda aniga qabsato ma. dabcan taasi waxay ahayd maareynta markii arrintu ay xasaasiyad badan abuurtay siday u maareeyeen ayuu ka hadlay wasiirka warfaafintu. laakiin waxa kaloo jirtay hay-dadka ku dhadhow dawladda markii la waraystay inay dhaheen arrintani waxaa hawsheeda ugu weyn lahaa Sambalooshe. marka arrinta haddaa adigu lahaydna u sheeg ummadda Soomaaliyeed, haddii aad lahaydna ciddii lahayd inaad sheegto soo intaas kaagama habboona. ma anigu inaan farta isku fiiqo qof kale aan farta ku fiiqo ma rabo. waa garta baarlamaan baa baadhay, waxay dhaheen qaabkii lagu dhiibayna qalad buu ahaa, sidii loo soo qabtayna qalad buu ahaa. waxaa kale sheegeen inuu nin muwaadin Soomaaliyeed oo ciidanka Soomaaliya kasoo tirsanaa inuu ahaa. wada aniga please arrinkaas Qalbi Dhagax wax badan inaan ka sheego ma rabo. baarlamaankuna habkii hadda ay u qoreen hab oo xitaa very unprofessional ah. waa garta marka ma rabo wax badan inaad iga qodqodid oo Qalbi Dhagax ku saabsan. 28 bishii Juun ee aynu soo dhaafnay oo ku beegnay 10 bilood kadib markii loo dhiibay dawladda Itoobiya, Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxa uu dib u helay xorriyadiisii, waxaana lagu sii daayay cafiska maxaabiista siyaasadeed ee uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. isbedelada Itoobiya waxay saameeyeen gobolka, gaar ahaan xiriirkii Itoobiya iyo Eritrea oo saldhig u ahayd ururka ONLF iyo ururo kale oo mucaarad ku ahaa dawladda Itoobiya. dawladda Itoobiya ayaa intii Abiy Ahmed uu joogay Eritrea waxay liiska madow ka saartay ururka ONLF iyo laba urur oo kale. 28 bishii aynu soo dhaafnay ee Juulaay waxaa Eritrea booqasho ku tegey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waxaana intii uu joogay dalka Eritrea uu halkaasi kula kulmay gudoomiyaha ururka ONLF Admiral Maxamed Cumar Cusmaan, oo kulankaasi kadib idaacadda VOA u sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ugu dambayn raaligelin ka bixiyey dhiibistii Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax, inkastoo dawladda Soomaaliya aysan arrintaasi si rasmi ah u xaqiijin una beenin.